وفتي الصومالية مدحونها جمهورية الديمقراطية الصومالية هي مدحونها إريتريا labadaba kor Allah ka dhigay waan gacan qaadnay waana soo dhaweynay madaxdii kale maxay la socotay wasiiradii iyo ambassador iyo saraakiisha la socotay waan soo dhaweynay waxaan ku soo dhaweynay cadadul quraan waxaan baryaynaa dalkaniga nabada dawladeena nabada tan oo nabadgelyo ah inaanu tan nabadgelyo kaga tagno taanagana nabada ugu tagno dad wanaagsan inaanu u tagno oo walaalahana 20 sano meelaha iyo waliba googabayaan joognay dalka Eritrea si fiican baan ugu noolaa waa la soo dhaweeyay waxa la nasiyay wixii wax la siiyo wixii ugu qaalisanaa waxa ugu qaalisanaa waa maxay waa ciidooda bay nagu soo dhaweeyeen nabadgelyo ku joognaa nabadgelyo iyo nolol fiican baan ku joognaa waxaan ku joognaa in caruurtanadu waxbarasho ay ka heshay ilaa heer jaamacadada annaguna nolol fiican baan ku joognaa waxa kaliya tahay dhibaatanagu waxa weeye ee waddankaniga oo joogin laakiin kaanaga labaad baan joognaa waxaanu la midnahay dadka maxay Eritreanka ah haddii aan annagu maxay ahayday kasi xagga nabadgelyada kasi wanaagsaneen sababtoo ah qofka marka la yiraahdo waa Soomaali si fiican baa la soo dhaweeyaa waxa la yiraahdaa Soomaaliya waxaanu helay annagu Soomaaliya iyo Eritrea wanaagii ka dhaxeeyay ama waxay Soomaaliya u qabatay Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay hore ugu qabatay annaga ayaa dhaxalkeedii helay waxaanu ka helay dadweynaha Eritrea shacabkaanu ka helay madaxdaanu ka helay madaxda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa madaxda Eritrea sharafta leh inay kala hadlaan maxay ahaydeen arrimaha naga oo socdaaladana iyo degitaankanaga cid dib u noqon doonaysa iyo cid maxay dhinac kale u soconaysa inay kala hadlaan ta kale waxaan aad iyo aad madaxda Soomaaliya gaar ahaan uga codsanaynaa safaaradda meesha loo keeno noo dhaxaysa annaga iyo dawladda Soomaaliya annaga iyo Eritrea noo dhaxaysa dalka markaad ka soo tagto baad ogaan qiimaha uu leeyahay waxa loo baahan dalka nabadiisa laga shaqeeyo dawladda la garab istaaga si sharaf leh dawladda loo garab istaaga wixii ay qaban karta lala qabta guul aan u rajaynaynaa dawladda Soomaaliya insha Allah shacabka Soomaaliyeed garbaha isqabsadeena dhibaato waa ka daalnay dhibaato nooma yar waan ka daalnay 30 sano dagaal waddankeenu uu ku jiraa insha Allah waan soo duceynayna annagana meel kasto joogna dadka Soomaaliyeed waxa ugu baaqaynaa inay nabadda ka shaqeeyaan waan